intiina badan weliba dadka bannaanka uga baxay dalka waxaad tagtaan maqaayadda silsiladda ee KFC oo ka mid ah maqaayadaha cunada fudud ee ugu caansan dunida. aad ayay jecel yihiin dadka xiiseeya cunooyinka fudud, gaar ahaan digaagga shiilan. miyaad ogtahay in maqaayaddaas dunida ku faaftay ay ka dhalatay halgan qofeed oo muddo socday? miyaad aaminaysaa in oday lixdankii kor u dhaafay uu ka midho dhaliyey dadaal uu waqti dheer uu ku jiray xilli da'du ay haysay? ka waran haddii lagugu didi lahaa fikrad 19 jeer, miyaad aqoonsan lahayn mise waad isdiidsiin lahayd oo hore ayaad uga socon lahayd? waxaan malaynayaa oo ay u badan tahay in su'aalo badan oo maskaxda idinka gooxayaan. si aan jawaab ugu helo waxaan idiin soo gudbin doonaa sheekada qosasho la'aanta iyo halganka ee aasaasaha shirkadda Kentucky Fried Chicken ama KFC, Cornel Sanders. ujeedkan sheekooyinka noocaana kala yahay waa inaan baraarujiyaa qof ama qofof laga yaabo inay qoysteen kadib dhowr isku day oo ay sameeyeen oo sidii ay rabeen aan ugu soo bixin. Roma maalin laguma dhisin oo maamaha Ingiriisi ah, dulucdeeduna ay tahay inaan hal mar qofku wax wada helin, ee noloshu ay halgan tahay. halgankaasna uu maro waddooyin raf ah haddii qofku uu dhowr adeegana kuradii waddada weyn. waxaa jirta hees ka mid ah heesaha Soomaaliga oo shakhsi ahaan aan u arko mid dhiirigelin ah, cashiro badanna laga baran karo. heestan waxay leedahay: ha ka dayrin weliga noloshaad la deris tahay, ha u doodin abidka tu kalood ku dayataa. sidii diintu nagu tiri, dayaxana ha dhaaftee, khayrkaa darajaduu helay, rabbi kaama daahine, dadaal gaari doontide. siday diintu nagu tidhi dayaxana ha dhaaftee, khayrkaa darajaduu helay, rabbi kaama daahine, dadaal gaari doontide. arigaan uga socdo waa dadaal gaari doontide, xaquusan. waxaa kale oo heestan ku jira cashiro kale oo ah weligaa qof ah isla barbardhigin, maxaa yeelay dadku isku mid ma ahan. isla barbardhigga naftaada ee qof kale waxay ku keenaysaa guuldarro iyo quus. sidaas darteed halgankaaga gal adiga oo adiga ah. aan u soo laabana barnaamijkeena ee sheekada asaasaha shirkadda Kentucky Fried Chicken. kusoo dhawaada, waad ku maasan tahay inaad nagu soo biirtay oo aad nala socoto. mahadsanid 11 jeer. Cornel Sanders oo u dhashay dalka Maraykanka ayaa aabihiis geeriyooday isagoo 6 jir ahaa, maadaama ay hooyadiisu buuxisay kaalintii aabbaha oo ay guriga ka maqnayd maalintii oo dhan. Sanders waxaa looga tegay daryeelka walaalihiisa ka yaraa. sidaas darteed markii uu jiray 6 sano waxa uu bilaabay inuu cunada kariyo, qoyskana sii ogaado inta hooyadiis ay maqan tahay. 7 sano markii uu gaaray waxa uu noqday cunno kariye xirfadle ah. da'diisii 10aad ayuu bilaabay inuu ka shaqeeyo beer. 2 sano kadib hooyadiis waxay guursatay nin gacanka hadal badan oo aan jeclayn carruurta. Sanders wuxuu iska dhaafay iskoolkii 30 jir markuu ahaana wuxuu iskaga tegay gurigii isagoo shaqo ka helay goob lagu runtiyeeyo gaariyaasha farduhu ay jiidaan. markii uu gaaray 15 sano waxa uu ku biiray ciidanka Maraykanka. 18 jirnimadiisina waa uu guursaday oo waxa uu samaystay qoys. halkaas waxaa uga dhashay 2 gabdhood iyo wiil. nasiib darra wiilkiisii ayaa ku dhintay da'yar, qoyskiina ma sii dhisnaan oo waa uu burburay. Cornel Sanders waxa uu kala bar noloshiisa ku qaatay shaqooyin iska hooseeya. waxa uu gadayay caymiska iyo taayirada baabuurta. waxa uu ahaa beeraley naaquuda doon uumiga ku shaqaysa, xogahayn, garyaqaan. waxa kale oo uu kaxayn jiray doonta dadka ku kala gudbaan iyo waxyaabo kale. waxaa lagu yaqaanay inuusan shaqooyinka ku nagaanin muddo dheer, markastana shaqada waa laga ceyrin jiray. haddii aad is leedahay weli kuma soo gaarin yeermadaada ama halkan nidaadu rabto, ogow, Cornel Sanders uma suuragelin inuu cunadiisa ku iibiyo kaalmaha shidaalka ilaa uu ka gaaro da'da 40-nada. ganacsigiisa ayaa noqday mid marba marka kasii dambeysa aad u caanbaxay ilaa uu gaaro maqaayad 140 kursi leh. 10kii sano ee ku xigay markii la bartay wax soo saarkiisa waxa uu horumarinayay isku dardarkiisa qarsoodiga ah ee digaagga la shiilo. nasiib darro markii uu gaaray da'da 65 ayaa maqaayadiisi waxay noqotay mid kacda oo musalifta. markii ugu horreysay noloshiisa ayuu iska xadiriyey inuu ceyr qaato. waxa uu ahaa 60 jir howlgab ah oo aan waxba haysan. ha yeeshee taasi kama dhigin inuu joojiyo aaminsanaanta riyadiisa, marnabana isma dhiibin. waxa uu lacagtiisa ugu horreysay ceyrta ahayd oo gaaraysay $105 u isticmaalay inuu u safro guud ahaan Maraykanka isagoo raadinaya cid uu shirka la noqdo. wuxuu la wadaagay sirtiisa gaarka ah. xilligaas waxay ahayd waqtigii u adkaa noloshiisa. gaarigiisa ayuu dhex seexanayay isagoo helayay raashin yar oo nafta ku badbaadiyo. in badan waa lagu gacan siiray,
ha yeeshee quustu marnaba dooq iyo dow midna uma ahayn. Colonel Sanders waxaa lagu diiday fikirkiisa 1009 jeer ka hor intaan la aqbalin farsamadiisa hal mar. wax yar kadib Colonel Sanders waxa uu helay 600 oo ganacsi oo iibinaya digaagiisa KFC. shirkadiisa ayaa si dhaqso ah u fidaysay, wayna ku adkaatay Sanders oo da'diisu weyneed inuu maamulo. sidaas darteed wuxuu shirkadiisa ku gaday $2 milyan isagoo kaliya la haray afhayeennimada. waxa uu ku dhintay da'da 90-ka. maanta waxaa jira in ka badan 20,000 oo maqaayadood oo KFC ah oo ku kala yaala dunida dacaladeeda. sidaa sheekadan ka fahmi kartaan, waxaa la diiday in ka badan 1009 jeer ka hor intaysan u gadmin farsamadiisii. noloshiisa oo idil waa uu ku fashilmay shaqo kasta ee isku dayo. qofku waa inuu xasuusnaadaa in guuldarro kasta ay tahay tillaabada loogu dhowaanayo wax ka wanaagsan waxa aad hayso. dadka inta badan way niyad jaban oo quustaan si dhaqso ah. waxaa ka dheeracda inaysan guul gaari karin marka ay gaaraan da'da qaar. habfikirka noocaas waa qalad. muhiim ma ahan da'daaga ku jirto. haddii aad 20 tahay ama 50, marnaba ma aadan daahin. waxaad samayn kartaa waxyaabaha ugu waaweyn haddii aad is aaminsan tahay oo aadan isku mashquulin guuldarrooyinkii hore. guuldarrooyinkii hore marnaba ma go'aamiyaan mustaqbalkaaga. ka waran haddii Colonel Sanders uu quusan lahaa markii uu gaarigiisa ku dhex noolaa isagoo aan waxba haysan, marnaba ma uusan quusan oo wuxuu aaminsanaa naftiisa. waana ta keentay in markii uu ku jiray da'da 70-aadka uu noqdo aasaasaha shirkad ku kacaysa $1 bilyan. mar kasta maanka ku hay inaysan jirin wax la dhaho waad gabowday, ma guulaysan kartid. aamin kartidaada. waxaa tahay bini'aadan aan xal lahayn. marnaba ma aadan ka daahin guusha. kaliya hadda bilow. siday diintu nagu tidhi yaxanaa dhaafti adkaa darajadu helay nabiskama daayne dadaal gaadhi doontide siday diintu nagu tidhi yaxanaa dhaafti adkaa darajadu helay nabiskama daayne dadaal gaadhi doontide